Waxaan bilaabaneynaa cashirkeeni 23aad. Waxaan soo qaadanay 22 cashar ayaan soo qaadanay kuna saabsanaa basic computer skills, qeybaha hoose oo foundationka ah oo computerka ayaan ku baraneynay. Casharadan waxaan dhahnay totally free waaye, qof walbo oo afka Soomaaliga ku hadla wuu u furan yahay, wuu ka baran karaa si bilaash ah. Marka waxaan dhahnay buug ayaan diyaariyey, buuggaas qofkii rabo wuu iga soo codsan karaa, Muqdisho meeshuu ka joogo waa loogu keenaya $6 waaye. Marka casharadanna waxaa fiican aan dhahnay in aad kow kasoo bilaawdo aad maaragtay saas usoo wado ilaa 23 cashar saas aad u qaadato, markaas ayuu kuu fududaanaya. Waxaan soo qaadanay hardwarekii iyo softwarekii ayaan soo qaadanay, qeybaha network ayaa hadda ku jirnaa iyo softwarekii oo aan qaab practical aan u sameynayno oo computerkii inaan wax ka bedelno, laababkii aan ka wadaa, laababka inaan sameyno iyo maaragtay iyo qeybihii networka ayaan hadda ku guda jirnaa. Marka waxaan maanta qaadanaynaa switches wax la dhaho ayaan qaadanaynaa. Switcheska waa maxay switches? Switchka waxaa waaye waa waxa isku xira kombiyuutarada meesha ay ku xirmaan waa si communication oo u dhaco waxaa loo baahan yahay switch in la helo. Hore waxaa loo isticmaali jiray wax la yiraahdo hub uu soo maray iyo bridge waa laga soo gudbay, kuwaas xoogaa cilado badan jira awgeed waxaa loo soo gudbay switchka ayaa loo soo gudbay. Habka wuxuu ewel ahaa jiray saan oo kale u ahaa habka, laakiin ciladiisa wuxuu ahaa habka horta switchka waa kana, habkana kan oo kale uu ahaa, laakiin maaragtay switchka xoogaa ka duwan oo maaragtay wax lagu daray. Waxyaabaha marka ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah habka computerkan wuxuu ku xiran yahay habkuu ku xiran yahay, kan 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 habkuu ku xiran yahay. Marka 1 2 3 4 5 ayaa ku xiran habka. Marka haddii computerkan uu rabo computerkan inuu la xiriiro oo data la wadaago, kan tusaale ahaan oo kale 1 waaye, kanna 2 waaye, kanna 3 waaye. Marka computer 1 markuu rabo inuu la xiriiro 3 datada markuu soo diro waxay imaanaysaa datada habka ayay imaanaysaa. Hadda kan switch waa laakiin hab ahaan aan kasoo qaadanay habkii la isticmaali jiray. Marka habka markay datada imaato meeqa ports ku dhagan 1 2 3 4 5 6 7 8 ports waa midaa ports ayaa la waxaan meesha computer ku xirmo ports ayaa lahaa. Marka computer 1 markuu data soo diro oo habka u yimaado, habka wuxuu sameynayaa he will send all the computers connected. Computerada ku xirmo dhan ayuu datada u dirayaa, kana u dirayaa portyada dhan dhammaantood ayuu u dirayaa, inta ku xiran ayuu u dirayaa datadii. Marka datada waxaa dhacaysa qof walbo inay datadii uu helo, asiga laakiin wuxuu u waday number 3 ayuu u waday, laakiin waxaa dhacaya inay datadii kulli ay wada helaan informationkii uu soo diray, packet-kii uu soo diray in qof walbo uu helo ayaa meesha dhacaysa. Taas marka waxay keenaysaa in maaragtay qof aan ku habboonayn datadii uu helo. Waxaa dhici karta marka qofkan datada helo marka qofkan ku socon datada hadduu helo inuu siyaabo kale u isticmaalo ayaa dhici karta. Taasna waxaa waaye for security is not good, security ahaan ma fiicna. Mideeda kale bandwidth-ka speedkiina maaragtay slow ayuu noqonayaa because waxaa imaanaya culays ayaa imaanaya maadaama uu all ports ku xiran oo dhan u diraayo. Waxaa dhacaya marka culays badan ayaa dhacaya. Marka waxaa la sameeyey marka waxaa loo gudbay marka switch ayaa loo gudbay. Marka switchka hadda rabnaa inaan fahanno. Switchka markii loo gudbay waxaa la yidhi okay niyahow anaga ma rabno in maaragtay computerka markuu soo diro dato oo kan uu ku socdo ma rabno inay helaan computerada kale ayaa la isla gartay. Device oo maaragtay saas noo sameynaya aan sameynaa la yidhi. Marka switchka la sameeyey, switchka marka wuxuu sameynayaa markii number 1 uu data soo diro oo switchka u yimaado, switchka is very intelligent waa caqlilow ay dhahaan, uu ka caqli badan yahay habka because wuxuu sameynayaa table ayuu sameysanayaa. Waxaan dhahnay marka computer walbo wuxuu leeyahay MAC address wax la yiraahdo, physical address ama MAC address wax la yiraahdo uu leeyahay. Computer walbo oo caalamka yaalo oo jiro ama laptop ha ahaado ama computer caadi ha ahaado ama mobile ha ahaado wuxuu leeyahay wax la yiraahdo MAC address ayuu leeyahay. Marka MAC address-ka unique waaye, computerkan buu u gooni yahay. Computerkan iyo computerkan MAC address-ka isku mid ma noqon karaan. Hal computer MAC address-kiisa isku mid ma noqon, wuu ka duwan yahay. Marka
wuxuu sameynayaa marka switchka wuxuu sameynaya marka computerkan lagu xiro switchkaa la keenay fiiladiyaa lagu xiray fiilada marka slong lagu xiro fiiladii wuxuu sameynayaa MAC addresska u qoranaya switchka wuxuu ku fiican yahay tablekiisa wuxuu gashanayaa MAC addresski numberkii oo unique ahaa oo computerkan lahaa ayuu gashanaya kan hadii lagu xiro MAC addresska ayuu qoranaya kan hadii lagu xiro MAC address tablekiisa ayuu ku qoranaya tablekiisa ayuu ku save gareysanaya marka wuu yaqaanaa computer walbo number 1 MAC addresskiisa wuu yaqaanaa number 2 MAC addresskiisa wuu yaqaanaa number 3 MAC addresskiisa wuu yaqaanaa so marka waxaa dhacaya marka computerkan uu rabo number 3 inuu la xiriiro number 1 markuu number 3 la xiriiro uu data uu soo diro inta yimaado number 1 ayaa data soo diray ayuu leeyahay okay xagee u socotaa number 2 ayaan u socdaa number 2 ma u socotaa ha okay number 2 MAC addresskiisii waa kana uu leeyahay okay number 2 MAC addresskiisu raadinaya table ayuu ka raadinaya markuu helo wuxuu leeyahay okay go to number 2 ayuu leeyahay so marka wuxuu haystaa MAC addresska computerkan iyo computerka MAC addresskiisu haystaa number 1 MAC addresskiisu uu soo diray data oo number 1 waa ku aqaanaa uu leeyahay MAC addresskaga aqaanaa xagee u socotaa number 3 yaa u socotaa MAC addresskiisa uu fiirinaya tablekiisa okay go to number 3 so marka waxaa dhacaya marka computerkan iyo kan inaysan informationkii aysan helin taasna waxaa noo dhalanaya security ayaa noo dhalanaya oo ah in maaragtay datadii qofkii ku socotay oo ku habbooneed uu noo helo bandwidthkii iyo speedkii uu noo ziyaado oo maaragtay uusan qaybaha kale computerkii datadii fiilooyinkan kale aysan aadin marka waxaa noo dhalanaya fast speed iyo waxaa noo dhalanaya iyo security ayaa noo dhalanaya security riskigi meesha ayuu ka baxay oo datadii qof kale ma helayo marka switchka intaas waaye haddii marka aan waxaana ogaataa marka maaragtay network la isku xiraayo in switch la isticmaalo meel walba tagto hay-adaha meel walba tagto hay-adaha dowliga oo kale muxuu ahaa hormuud oo kale shirkadahan isgaarsiinta oo kale ay shirkad oo isticmaashay kombiyuutarro haysato isbitaaladoo kale waxaas dhan waxay isticmaalaan switch ayay isticmaalaan switchka ayaa la isticmaalaa oo kombiyuutarada dhan ay ku xiran yihiin qol gooni ah ayaa la dhigaa oo raag loo sameeyaa oo la gelgeliyaa marka adiga ma arkaysid laakiin switchka ayay ku xiran yihiin soo marka haddii aan marka isla qeexno oo aan isla fiirno muxuu ahaa dhinaca maaragtay qoraalka wuxuu leeyahay a switch is a network hardware device waa switchka waxaa waaye waa network hardware oo network ah device-na ah waa shay device ah oo hardware-na ah oo la taaban karo oo loogu talagalay network in lagu isticmaalo marka wuxuu ku leeyahay that joins wuxuu maaragtay join gareeyaa ama isku xiraa multi computers dhowr computer ayuu isku xiraa together inay wada dhammaantood inay isku xirmaan waxaa noo saamaxaya switchka ayaa noo saamaxaya within the same LAN anagoo isticmaala local area anagoo isticmaalay local area muxuu yahay waa soo qaadanay qofka cashirkii hore aan kusoo qaadanay LAN wuxuu yahay waxaa waaye waa small network oo loo isticmaalo hal building ayaan dhahnay LANka so marka wuxuu ku leeyahay marka unlike hubka switches unlike hub laakiin maya uu ka wadaa switches forward data only wuxuu ku leeyahay to the intended destination wuxuu switchka forward ku sameeyaa datada ayuu wuxuu u diraa only intended destinationka oo u baahnaa loo u dirayaa computerkii oo ku habboonaa datada loo u dirayaa macnaha habka laakiin wuxuu yidhi unlike hub may switchka laakiin wuxuu u dirayaa destinationkii uu ku habboonaa ayuu u dirayaa datada because of this maxaa yeelay they are slightly smarter wuxuu ka wada caqli low waay switchka waa caqli badan yahay so marka wuxuu ku leeyahay more common inta badan waa maaragtay waa ka siman yihiin switchada dhan wuxuu ku leeyahay switches can also be connected to other switches macnaha waxaa samayn kartaa switch kale ayaa ku xiri kartaa another LAN ayaa inta keento ayaa ku xiri kartaa ma fahamtay so marka fiilo ayaa kasoo baxaysa switchkan fiilo kale ayaa marka waa ballaari kartaa oo ka wada macnaha network ayaa weynay kartaa oo another LAN ayaa samayn kartaa oo two switches ah isku xiri kartaa ayuu ka wada so marka wuxuu ku leeyahay switches can also connected to other switches intaasuu rabaa
this increases marka wuxuu noo this wuxuu ku leeyahay das uu ka wadaa laakiin this ayuu ka wadaa. Wuxuu ku leeyahay this increases the number of device. Tan marka waxay noo sameynaysaa in maaragtay laba switch aan isku xirno waxay noo kordhinaysaa the number of device of the LANs. Waxay noo siyaadinaysaa marka device-yada oo kombiyuutarada kusoo xirmi doona network-ga ayuu noo siyaadinaysaa. Haddii marka network-gan aan rabno inaan ballaarino, another switch ayaan soo gadanaynaa. So then you can connect the two switches and then kombiyuutaradii ayaan ku xiraynaa on the LAN without wuxuu ku leeyahay scripting wuxuu ku wadaa without sacrificing performance, annagoon sacrifice u sameyneynin, oon ku dadaalaynin performancega xagga performancega ayuu wuxuu noo sameynayaa in device-yadii oo maaragtay ay noo badiyaan. Wuxuu ku leeyahay marka wuxuu ku leeyahay troubleshooting switch is easier. Wuxuu ku leeyahay in la troubleshoot lagu sameeyo. Troubleshooting wuxuu ka wadaa cilad bixin. Ereygan troubleshoot haddaan aragto waa cilad bixin. Troubleshoot haddaa aragto waa cilad bixin. Waa terminology loo isticmaalo computerka waaye qolada IT-ga isticmaasho. Marka waxaa waa troubleshooting in la cilad bixiyo switchka in la cilad bixiyo easier way fududahay because of the status indicator lights. Macnaha nalal ayaa ka shidmaan. Nalalkaas marka waxay kuu sheegayaan meesha boortiska haleysan iyo waxaas inay kuu sheegayaan. Indicator ayay ku siinayaano waxay kuu sameynayaan in ciladii aad ogaato because of the lightskaas maaragtay caayo. Waxay noo sheegayaan in uu guduud hadduu yahay oo kale that means waxaa waaye ma shaqeynayo boortiskaas kuma shaqeynayo camal ayuu ka wadaa. Individual ports port walbo ayuu noo sheegaya. Portka hadduu ka haleysan yahay lightska ayaa noo sheegaya. Ujeedaa lightskan uu leeyahay 1 2 3. So kan lightskiisa waa kana, kan lightskiisa waa kana, kan lightskiisa waa kana. So marka kan haddii marka lightkiisa guduud uu noqdo that means portskaas ma noo shaqeynayo. waa isla fahanaa umaynaa. So kan haddii kan portigan hadduu noo shaqeynayo that means maaragtay lightkan nalkan oo cagaarka ah wuxuu noo noqonaya guduud ayuu noqonaya. That means ma shaqeynayo portskan. Hadduu laakiin cagaar yahay wuu shaqeynaa. So marka it's easier to troubleshoot. In la cilad bixiyo way fududahay oo portiskii ka haleysan waa fahmi kartaa. Marka switchka waxa waaye waa device-ka ugu muhiimsan ee network-ga loo isticmaalo haddii ahaleed markii network-ga la isku xiraayo. Marka waxaan baranay maanta switch ayaan baranay. Cashirkeena theory intaas ayaan kusoo koobaynaa. Waxaan qaadanaynaa sida computerka dhinaca software-ka ayaan qaadanaynaa oo computerka waxaan sameynaynaa in aan maaragtay passwordka si looga bedelaa computerka. Cashirka laab ahaan taas ayaan u qaadanaynaa. Waxaad tegeysaa start. Waxaad tegeysaa meeshan madaxa ay ku qoran tahay oo userada ay ku jiraan ayaa click siinaysaa. Markaa click siiso waa ku celiya maraadan ku celshay. Waxaad tegeysaa change account settings ayaa tegeysaa. Pagekan oo settingskan oo furmaayo kadib waxaad tegeysaa sign in options ayaa tegeysaa. Okay intaanoo qeyb ayaa maaragtay passwordkaaga ayaad ka dhigan kartaa oo aad ku bedbedelan kartaa. Haddii aad rabtid maaragtay tan koowaad optionka koowaad wuxuu ku leeyahay meesha horta qoraalka hore wuxuu ku leeyahay sign in options. Manage wuxuu ku leeyahay how you sign in to your device. See maaragtay u manage gareyn kartaa sida aad u gali lahayd computerkaaga. Wuxuu ku leeyahay select the sign in option, add and change and remove. Maaragtay wuxuu ku leeyahay select midka aad rabtid aan ku dar ama wax ka bedel ama iska bixi. Maaragtay intaan midka rabtid ayaa ku darsan kartaa, midka rabtid ayaa iska delete gareyn kartaa, midka rabtid ayaa ku dari kartaa. So marka midka ugu horeeya waxaa waaye Windows Hello Face. Facekaaga ayaa maaragtay ayaad ku xiran kartaa password ka dhigi kartaa. Picture ayuu wajigaaga ku aadinaysaa computerka wuu kuu furmayaa. Taas waa mid. Waxaa kaloo jiro Windows Hello Fingerprinter. Suulkaaga ayaa isticmaalaysaa ama fartaada ayaa ku furaysaa. Waxaa kaloo jira pin ayaa jiro. Windows Hello pin ayaa jiro. Waxaa kaloo jira security key oo aad u isticmaalayso flash maaragtay USB ayaad u isticmaalaysaa. USB ayaa gelinaysaa oo wuu akhrinayaa kadib wuu kuu furmayaa. So marka USB adaa gelinaya passwordka markaas aad u baahan tahay kadib marka waa gelinaysaa. Markaa geliso waa passwordka ayuu akhrinayaa laakiin USB gaas mar walbo
waa inuu adiga uu gooni ku yahay uusan qof kale helin. Haddii qof kale uu helo wuu gelinayo wuu ku furaya. So marka afartaas ayaa maaragtay qaybad ayaa ku samayn kartaa passwordkaaga inaad ku badbedelato oo maaragtay haddii aan pinka isla fiirino kale. Marka waxaan dhihi karnaa marka your pin is all set up, sign in Windows app services. Waxaan dhihi karnaa marka haddaan rabno I forgot haddaa pinki I forgot ayaa leedahay kadib emailka ayuu kugu soo diri karaa oo emailka ayuu kugu soo dirayaa. Haddii aad rabtana waa iska bedeli kartaa. Waxaa leedahay change pinka hadda uu ku jiro inaad iska bedeli kartaa. Wuxuu ku leeyahay all the pinki geli pinki oo hadda uu kan hadda kuu yahay geli kadib waxaa samayn kartaa in pin cusub aad confirm ku samaysid. New pin ayaa gelinaysaa confirm ayaa leedahay. Laakiin midka koowaad waa kan hadda kuu yahay aad kusoo furatay waa in aad gelisaa kadib aad bedelataa oo mid cusub aad samaysataa. Laakiin hadda pin ayaa noo samaysan anaga computerka noogu samaysan. Pinka noogu samaysan ayaan gelinaynaa si laguu hubiyo inaad adiga tahay qofka wax bedelanayo. Marka waxaa samayn kartaa pinka oo hadda oo aad kusoo gashay ayaad gelinaysaa kadib ayaa waxaa samaynaysaa new pin ayaa samaysanaysaa oo maaragtay haddii aad shakisay oo kale qof kale inuu pinka kaa ogaado haddaa ka cabsanayso oo kale waa bedeli kartaa. Marka saas ayaa passwordka computerka loo bedeshaa dhowrkaas qaybood. Casharkaana wuxuu ahaa casharkii theory-ga. Intaas ayaan kusoo koobaynaa casharadeenii dhammaantood. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.